Ku soo biir kanaalka Sahanka Dunida oo subscribe saar haddii aad ku cusub tahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dad badan, gaar ahaan dhalinyarada maanta joogta, waxay jecel yihiin inay maqlaan taariikhda ragga taajiriinta ah ee dunida magaca ka sameeyay, kuwaasoo ahaa waqtigoodii hore dad fuqara ah, si ay ugu helaan dhiirigelin. Waxaan soo qaadanaynaa dhowr rag waqtigoodii hore ahaa fuqara, laakiin dadaal iyo shaqo badan kadib noqday mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu muhiimsan ee taariikhda soo maray. Ma waxaad doonaysaa inaad wax ka barato sheekooyinka ganacsatada aan lacagta haysan laakiin waqti kadib noqday rag taajiriin ah? Larry Ellison ma lahayn hooyo iyo aabbo toona, laakiin waxaa soo korsatay mid ka mid ah haweenka ku nool Mareykanka. Kadib markii ay haweeneydan aqbashay inay korsato maadaama ay dhimatay hooyadii, Larry wuxuu dhib soo maraba shaqo walbana uu uga soo shaqeeyo. Larry Ellison wuxuu aasaasay mid ka mid ah shirkadaha ugu caansan ee barnaamijyada, wuxuuna ka shaqeeyay sanado badan ilaa ay shirkadii adduunka gaarto, waxayna noqotay mid ka mid ah shirkadaha ugu wanaagsan uguna waaweyn ee la xiriira tiknoolajiyadda. Francois Pinal waa mid ka mid ah ganacsatada ugu caansan uguna muhiimsan dalka Faransiiska, maadaama uusan haba yaraatee wax lacag ah haysan markii uu yaraa, laakiin waxaa la gaaray heer uu ka tagay waxbarashadiisa si uu u shaqeeyo ilaa uu awood u yeeshay inuu soo aasaaso mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn adduunka. Hantidiisana hadda waxaa lagu qiyaasaa ku dhowaad 14 bilyan. Chan Kum wuxuu dhowaan noqday mid ka mid ah ganacsatada ugu muhiimsan adduunka, hantidiisana waxaa lagu qiyaasay ilaa 6 bilyan oo doolarka Mareykanka ah. Wuxuu ka soo shaqeeyay Mareykanka sanado badan, wuxuu ku noolaan jiray caruurnimadiisii dadka waxa ay siiyaan, laakiin fikir iyo shaqo badan kadib wuxuu gaaray in uu aaso barnaamijka WhatsApp-ka oo ka mid ah barnaamijyada ugu caansan ee baraha bulshada xilligan la joogo. Chan Kum wuxuu awood u yeeshay inuu ka mid noqdo dadka ugu taajirsan adduunka. Suleyman Al-Raaji wuxuu la kulmay dhibaatooyin fara badan bilowgii noloshiisa, laakiin dadaal iyo shaqo badan kadib wuxuu ku guuleystay inuu ka gudbo dhammaan dhibaatooyinkii soo food saaray ilaa uu ka gaaray inuu naftiisa ka mid noqdo ragga adduunka ugu guulaha badan iyo shakhsiyaadka ugu guulaha badan boqortooyada Sacuudi Carabiya. Waxaa la sheegay in Suleyman uu ka soo shaqeeyay bilowgii noloshiisa cunto kariye, laakiin sida ugu dhaqsiyaha badan uu kaga soo gudbay uuna ku noqday nin guuleyste.